السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga marka koowaad soo booqda channelkan la yiraahdo aqoon AC wuxuu ka soo jawaabay shanta diiniga ah insha Allah waxa kale oo ku xigto Anas ayadana way ka wada jawaabtay shanta diiniga ah maadigana waxay ka jawaabtay labo okay waxa ku xiga marka Anas haduu Ilaahay وصل كرا نقضة فاطمة عبد الله أيضا سوى بغضة جل كذا وحياة بدن أياك فائدة دونتان ما شاء الله تبارك الله وحكى الله إذا كان أتصوب وقتان هدو حامر عمينا سدح جنل كأفراد وحواية دجية دي زي قفك وقرنت إنه ويلي هنجعلها سوى بغضة جنل كيسو ولكن عاوية وقال صدني سدح سبسكراب أيوه هستا هاي دي كدريمو ما شاء الله هنا كوحدي أو سحرتهين waxaa ku xigto idil oo ugu dambaysa aydan soo booqdo walaashiin ma sha Allah jankeeda waxba ka helaysan intaas kadib walaalay qaaliga mar kale isku soo noqosho wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaashiin Zahra Ahmed Zahra Fashion Wall oo idin leh mar kale iyo jawaabaheeni maadaama ay ahayd shalay ma ahana maalintii ka horeysay su'aalaha shalay ma haleelin inaan idinkaga soo jawaabo marka maanta ayaan ka soo jawaabay مشغول iska haystay awgiis marka insha Allah gabdhaha iyo wiilasha ugu horeeyay magacyada aan soo geliyay journalada waa dadkii ka soo jawaabay inta aan ka ahayn qadra bundiid oo ah Gmail marka waxaan rabaa inaan idin sheego inta ka soo jawaabtay waa Fatima Cabdille oo ka jawaabtay 4 diiniga halna aan ka jawaabin maadigana 2 ka jawaabtay dajiyo DZ inuu wiil yahay rajeenaya diiniga wuxuu ka jawaabay 3 maadigana 2 aqoon AC qofkii ugu qoranta asna waa channel soo booqdo taa idin dhahay shanta diiniga uu ka jawaabay ma sha Allah kama jawaabin laakiin muxuu ahaa maadiga shanta diiniga sayto uga jawaabay xataa janaalada qaar waxay sheegayaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu geeridiisa kadib yaani ubadkiisa yaa noolay waa taa idin dhahay hal dad shan ay dhaayeen laakiin magaca taa uu sheegay Fatima noolayd ma sha Allah Anas kuukuna ayadan waxay ka jawaabtay 4 diiniga ah ka shanaad way ka tagtay idil channel diiniga waxay ka jawaabtay 2 3 ma haleelin sorry maadiga ayay waxay ka jawaabtay 2 ma aysan haleelin muxuu ahaa diiniga qadra bundiid waa channel waxay ka jawaabtay 5 dhan oo diiniga ah iyo 2 maadiga ah sorry Anas aan u soo laabto maadiga waxay ka jawaabtay 2 diinigana 4 diiniga way ka wada jawaabtay 5 odan ka wada maadiga 2 ayay ka jawaabtay sorry ma hadalku ma jiro intaas kadib walaalahayga qaaliga ah waxaan jeclahay maadaama su'aalihi ay soo weydiiyay dadna ay ka wada jawaabeen dadna aysan ka jawaabin inaan kaga faa'iideeyo su'aasha koowaad oo idin weydiiyay waxay ahayd saxaabigu ugu cimriga dheeraa asxaabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam most of them way ka soo jawaabeen kooxda wuxuu ahaa Anas bin Malik saxaabiga ugu cimriga dheeraa asxaabtii nabiga wuxuu ahaa Anas bin Malik su'aasha koowaad jawaabteedu waa taas su'aasha labaad waxay ahayd sheeg albaabka dadka sooman ay ka gali doonaan jannada ma sha Allah way wada galteen waxa la yiraahdaa baabu rayaan ayaa la yiraahdaa albaabka ay ka gali doonaan dadka sooman jannada su'aasha saddexaad waxa waaye nabigii la dhihi jiray qaliilur rahmaan alayhi salaatu wasalaam way sheegeen kulligood waxaa la oran jiray nabi Ibraahim ayaa loogu yeeri jiray magaca ah qaliilur rahmaan okay su'aasha afraad waxay ahayd sheeg halka lagu aasay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyooday jawaabtu waxay ahayd gurigiisa oo ku yaala Madiina most of them way ka jawaabeen waxay dhaheen Madiina laakiin halka uu ku aasan yahay waa gurigiisa si fiican adoo ka jawaabta dan iska sii ogow Madiino waa magaalo laakiin halka uu kaga siyaasan yahay waa gurigiisa marka waxa lagu aasay gurigiisa oo ku yaala Madiina okay su'aasha shanaad waxay ahayd rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu geeriyooday caruurtiisa imisa ayaa ka noolaa waxa ka nooleed Fatima bintu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam Fatima ayaa ka nooleed qaar waxay soo qorashan ayaa nooleed yaani meequu dhalay in la dhahay amal okay ma sha Allah tabarakallah waa ka jawaabteen diiniga badidiina maadiga marka hadii aan idin galo su'aasha koowaad oo soo weydiiyay waxay ahayd sidee bay ku dhici kartaa 8 maalin oo aadan seexan
jawaabtu waxay tahay maxaa horta maba loo baahan in maalin la seexdo ma aha daruuri habeenkii hal saac ka seexato waxay ka fiican tahay maalintii oo dhan marka daruuri maaha inaad maalin seexataba jawaabtu waa taas su-aasha labaad waxay ahayd maxaa loo yaqaanaa boqolkii neef oo ari ah way kasoo jawaabeen maasha allah kulligood waxaa loo yaqaanaa xirmo waxaa la yiraahdaa xirmo su-aasha saddexaad waxay ahayd nin ayaa salaad dukaday dhanka midig markii uu salaamo naqsadayna weysadii ayaa ka jabtay dhanka bidix markii uu yacni u salaamo naqsadayna faral ayaa lagu yeeshay hortiisa markuu fiiriyeyna gabadha ayaa ka furantay xaaskiisa jawaabta marka waxay noqonaysaa horta marka koowaad dhanka midig markuu fiiriyey dhanka midig markuu fiiriyey ay weysada ka jabtay waxaa wuu gabagabaystay wuxuu arkay biyo war ama meel biyo ku jiraan marka waa inaa weyse qaadataa biyo hesho adigoo gabagabaysatay markuu bidix fiiriyey oo faralka lagu yeeshayna waa bil soonqaad ayuu arkay marka soona ku waajibay hortiisa markuu fiiriyey ee gabadhi ka furantayna wuxuu arkay nin gabar uu dumaalay walaalkiis yacni uu ka dhintay walaalkiis ayaa kasoo horbaxay marka gabadhaas kuma xirno markee way ka furan tahay ninka hore u meersaday ayaa weli qaba jawaabaha marka ninkaas saddexdaas arrin ku dhacday jawaabteeda waa intaas su-aashaas mid afraad ay ahayd aan malayna anoo saddexaad ay ahayd okay tan afraad waxay ahayd laf ka mid ah lafaha jirkaaga ku jira oo aan dhuux lahayn waa iligtaada waa laf haddana dhuux ma leh su-aasha shanaad sheeg magaca gabar ka koobanta yacni 7 xarfood oo markaad 3 ka mida ku dhawaaqdo naqanayo xoolo dhadig ah 4 dambana naqanayo wax la kala qaato 3 hore oo xoolaha dhadiga waa sac 4 dambana waxa waa diyo marka sacdiya isku tahay magaca laakiin waxa waaye sacdiyo oo la kala qaaday waa neef lo ah sorry ilmeeyra aga soo dhaxkala su-aasha u dambeysay jawaabteeda waxay ahayd magaca sacdiyo soo maaha okay waxaa lagu weydiiyey micnaha magac 7 ka kooban 3 ka mid ah naqanaya neef dhadiga 4 dambana naqanaya wax la kala qaato 3 hore waa sac waa lo-da 4 dambana waa diyo marka magaca sacdiyo ayaa wuxuu u kala baxayaa neef dhadiga iyo diyada dadka ma kala dil la kala qaato marka jawaabta magacaas 7 xaraf sheeg ahaa jawaabtiisa waxaan maleynaa waa kasoo wada jawaabeen sacdiyo way ii soo qoreen marka walaaleyga qaaliga ah waxaan idinkii aniga idinkula dadaarmayaa cabsida ilaahay meel kastoo aan joogno waxaana idin leeyahay kuwii ku kulma jannada ilaahay hanaga dhigo toobadoodana la aqbalo insha allah waa walaashii Zahro mar kale idin leh waxaa idinkaga tagayaa caafimaad qab cimri dheer iyo cibaado suuban cidii igu cusub subscribe cidii hore ila socotayna like share and comment khayr aan dhammaan ayaa idinkaga rajinaa walaaleyga qaaliga ah kiina liito iyo kiina koreeyba isgarab qabta gabdhaha iyo wiilasha aan soo dhigay magacyadooda insha Allah soo booqdo subscribe siiya waa isku baahantihiin is caawiya insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh